الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد waxaan rabaa muuqaalkan kooban inaan kaga hadlo fadliga bishan maxaa la dhahaa 10 maalmood ee bishii ka laaban Ramadaan. sabab ogtiin bishii Ramadaan waa gabagabo 20 kamid ayaana dhaafay 10 kaliya ayaa hadda laaban 10 kan maalmood ee bisha ka harsan waa 10kii ugu fadliga badnaa bisha. nabiga sallallahu alayhi wasallam oo aad u dadaalay cibaadada si gaarana waqti u sii jiray. Aisha radhiyallahu anha waxay leedahay iyadoo nabiga xaaladiisa ka waramaysa كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. marka ay tobankan u dambeeya soo galaan nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenkan uu nooleyn jiray reerkiisana waa u toosin jiray cibaadada ay u toosin jiray guntigiisana waa u dhuujin jiray dadaal badan ayuu muujin jiray qolada cibaadada iyo qiyaamkii iyo dhammaan quraan akhriskii wax walba. haddaba waxaan laga rabaa annagoo ku daysanan nabiga sallallahu alayhi wasallam in aan waqti siino waqti badan gelino cibaadada gaar ahaan 10kan maxaa la raadaa Ramadaan. 10kan Ramadaan fadaa'ishooda ugu waaweyn waxa kamid ah in ay ku jirto laylatul qadr. saawada ogtihiin laylatul qadr waa habeen aad u baraka badan fadaa'il badanna oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ugu sheegay suurad gaarana kaga hadlay gaar ahaan suuradan la yiraahdo suuratul qadr ee ka warranta فضائش ليلة القدر. فضائش ليلة القدر لا روحها كمذا إلى سبحانه وتعالى سو شيء إن أي تهي ليلة خير من 1000 شهر. هبين كخير بدن كن بلو عمل كلقبتها وكخير بدنها عمل كن بلو لقبتي وحفظائش إذا كمذا إن أي هبين بركة سنته. وإلى سبحانه وتعالى حكوا لي سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وحفظائش إذا كمذا إن الله سبحانه وتعالى هبينك مقادير خلقك اللوح المحفوظ كلا سو هذا سوء المشيغات قرآن آيات القرآن كشيء سو فيها يفرق كل أمر حكيم أو عدي سندا لما له عدي سندا نولان هاي عدي وناكسنا له دمان لوريتشي وحفظ إشي ذا كمذا إن الله سبحانه وتعالى وكدجي هبين نبت قليو وإله سبحانه وتعالى وليه سلام هي حتى مطلع الفجر. وحفظ إيش إذا كمذا إن ملائكة سودجس سيد الله سبحانه وتعالى شيء إسلا سورة دا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وحفظ إيش إذا كمذا النبي صلى الله عليه وسلم وشيء إن عدي هبينك قيام لا تمادا الله سبحانه وتعالى ودم بالدافع دم بيده هراء وحلي النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا بقى وإحنا نجرب إن هبينك كود ذالنا هلدي سنة أن كود ذالنا. نبينا صلى الله عليه وسلم وحقوا شيء إن ليلة القدر لقيه له طبعا كان بيش قدام بايصا جارهان كود وتركه. النبي صلى الله عليه وسلم حليه تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحكوا الحديث كله التمسوها من العشر الأواخر في الوتر. maalmaha kaliida ah ka dhaxraadiya sida 12ka 13ka iyo 25ka 29ka 27ka. waxa kale xadiid kale laga wariyaa nabiga sallallahu alayhi wasallam in Ubaad ibn Samit ayaa ka warnay xadiidkan wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin inuu u soo baxay si uu ugu sheego asxaabada habeenka uu yahay Laylatul Qadr. wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam kharajtu li ukhbirakum bi Laylatil Qadr fatalaha fulan wa fulan فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. وحلينا النبي صلى الله عليه وسلم وصبح إن أن إذين شيروا ليلة القدر مركاسا وحا دوضي وإسقابصدي هبلي هبل مركاسا لكوريا لا النبي صلى الله عليه وسلم ليه أن إلا أوي حلقة أهد وحا كدحثا ذيبان مالنتا سقالات شناد يتضبات. waxa xadiidka marka laga soo tago inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku sheegay laylatul qadr in laga helayo maalmaha witirka ah. wuxuu kale xadiidka laga fahmayaa in dhibaatada uu leeyahay khilaafka iyo isqabqabsiga. waxa arkaysan in laylatul qadr daraad maxaa la khilaaf daraadi uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ilaaho. waxa macnaha sheegay in dadka isqabsigooda iyo maxaa la raada xataa dadka is haysta wax ka dhaxayaan in amaashooda xataa aan rafinin xadiidku soo arorta ee jirta. والنبي صلى الله عليه وسلم حليه تعرض الأعمال كل
khamiis fayagfiru allahu likulli imri'in laa yushriku billahi shay'a إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يتصالحا. النبي صلى الله عليه وسلم حليه إن maalin walbo khamiisi itnaan ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha loo bandhigaa qof walban ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aan shirki la imaan u dambi dhaafaa ilaa marka laga soo tago nin asaga iyo walaalkii ay dhibi ka dhaxayso kuwa wuxuu yiraahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halookaadii kuwa inta ay ka heshiinayaan taasoo sheegaysa in khilaafka iyo isqabqabsiga dhibtoodu ay maxaa la raahdaa saameynteeda cibaadada saameynayso khayrka loo ku iman lahaana ay ka saameynayso hadda waxaana laga rabaa gaar ahaan khilaafka wadankeeni kusoo hagaagaya maxaa la raahdaa maalmahan in aan iska yareyno ku dadaalno in maxaa la raahdaa soon bilaa khilaaf bilaa hada iyo isqabqabsi la'aan in aan soonno gaar ahaan 10kan kamid ah haddii aan mawduuca usoo noqdo laylatul qadr saan sheegnay waxa weeye in laga raadiyo maalmaha witirka ah gaar ahaan maxaa la raahdaa maalmaha 27ka ay saxaabada in badan oo kamid ah ay yiraahdeen waaba laylatul qadr iyada culimada qaarna waxay yiraahdeen laylatul qadr waa uu gurguuraa laakiin haddana waxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam laga wariyay inuu yiri التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم فلا يغلبن على 7 البواقي هدي محل هذا كرادية طبعا قدامبيا هدي قفكين فإن ضعف أحدكم أو عاجز هدي متكين أو عاجز أما كضعيف فبإن طبعاً وده هليل وايد تضبط قدامبيسا يعني لجاسو جنين هذا تضبط قدامبيسا dhacdo ay u sii badan tahay habeenka 22 saan soo sheegnay saxaabo badan ayaa waxay ku tageen in ay tahay maxaa la raahdaa laylatul qadr hadaba inta markaa kaga soo tago waqtiga laylatul qadr waxaana laga rabaa laylatul qadr inaan ku dadaalno dhammaan cibaadaadka haddii ahaan lahayd qiyaam haddii ahaan lahayd quraan akhris haddii ahaan lahayd maxaa la raahdaa cibaado kasta waxyaabaha sida gaarka u soo arooray nabiga sallallahu alayhi wasallam in habeenka la raado waxa kamid ah mar ay weydiisay Aisha radiyallahu anha in nabiga sallallahu alayhi wasallam weydiisay waxay leedahay ara'aytu in waafaqtu laylatul qadr famaada aqul hadii an habeenka ku beegmo nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa yiraahdaa markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ducadaas oo ah in aad xifdiso kuna dadaasho oo ah allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni waxa kaloo la gaar yihiin maalmahan oo sunnana ah waliba mu'akkada in qofku i'tikaafo masaajidda lagu i'tikaafo cibaadada si gaar ah loo kali noqdo waqtina la geliyo intaas ayaan ku soo koobaya muuqaalkan maanta waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaa in uu noo waafajiyo 10kan maalmood iyo fadligooda nagana dhiga kuwa haleela laylatul qadr looguna dambi dhaafo waxaan ilaahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh